assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ku soo dhowaada qayb cusub iyo barnaamijkeenii qisooyinka nebiyada. qisadani waxaan uga hadli doonaa qisadii nebiyullah saalex calayhi salaam. si aad mar walba nala socoto iyo qisooyinka aan soo dhigayno janalkeena ha ka ilaawin like, sabscribe iyo sheer. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مركل إيو برنامج كيني قصوين كالنبي ذا إيو قصة دي شنات. قصة داني وحانو واد لدونا قصة النبي الله صالح عليه السلام. قوم ثمود وحي دقناية ميل ديجري الحجر وميل ودحيس مدينة المنورة إيو تبوك دلك السعودية. reer thamuud waxay ka mid ahaayeen qabiilada carabta oo ka faracmeen saam ibnu nuux. qaala tacaala walaqad kadaba asxaabu alxijri almursaliin waaataynaahum aayaatina fakanuu canha mucridiin wakanuu yanxituuna min aljibaali buyuutan aaminiin faakadathum alصayxatu musbixiin فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أصحاب الحجر وإسلا قوم ثمود. sababta asxaabulxijirna noo dhahaynay buuraha ay guryo ka dhisan jireen. qoom thamuud waxay qoom caad ka dhaxleen awooddii iyo hantidii. sidoo kale alla wuxuu ugu deeqay dhuul beero ka baxa oo webiyo leh, iyo awoodda jirkoodii waa ay ka saraysay middii reer caad. nimcadaasi oo alla ugu deeqay meeshii alla u mahadnaqi lahaayeen waa ay kibreen waa ayna ku shirkiyeen. qoom thamuud markii oo dulmigooda iyo fisqigooda batay, alle subxaana wa tacaala ayaa dhexdooda ka soo saaray nebigaas oo ah nebi saalex calayhi salaam. nebi saalex qoomkiisa thamuud wuxuu ugu wacdinayay alla inay caabudaan oo ay shirkigii ka fogaadaan iyo dulmiga. qaala tacaala وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. oo macnaheedu ay tahay thamuud waxaan u dirnay walaalkooda saalex. saalex wuxuu qoomkiisa ku yidhi, qoomkaygiiyo alla caabuda, ilaah kale ma lehdihiin. asaga ayaa dhulka idinku abuuray, asaga ayaa idinka dhigay dad dhulka dhisa, cumrigiinana waa u dheeray. istikfaar la imaada ee toobadkeena, rabbigeenna waa inuu dhow yahay, wuuna naga ajiibaa ducada. sidii qisooyinka nebiyada horey ku soo aragnay, nebi saalex waxaa keliya rumeeyey dadkii masaakiinta ah. kuwa kale waxay dhaheen, saalaxow anaga hore waan ku ixtiraami jirnay, laakiin hadda waxaan ku aragnaa inaad waalan tahay. nebi saalex calayhi salaam dacwada kama daalin. haweenii maalin ayuu ugu wacdinay. maalin maalmaha ka mid ah, madaxda reer thamuud oo wada fadhiya ayuu u yimid. wuxuu ugu wacdiyey oo wuxuu ku yidhi, reer thamuudo ama qoomkaygiyo alle ka baqa oo alla u soo laabta. markaasi ay dhaheen, saalaxow anaga haddaad rabto inaan hadalkaaga rumaysano, dhagax weyn ay u tilmaameen. waxayna dhaheen, dhagaxaasi dhexdiisa geel ma ka soo saari kartaa? sidoo kale waxay dhaheen amay ugu dhaarteen, haddii aad dhagaxaasi geel ka soo saarto waan ku rumaysanaynaa ama waan ku aaminaynaa. nebi saalex calayhi salaam alla ayuu baryey inuu dhagax ay tilmaameen oo kasoo dhex saaro hasha ay ka codsadeen. alle wuu ajiibay ducadiisa. qoomkii oo dhammaan arkaya, alle ayaa hashii kasoo dhex saaray. dhammaan waxay u noqotay mucjiso. mucjisadaas keliya ma ahan, mucjiso kale ayaa la tusiyey. hashii ayaa hortooda ku dhashay. saas ay tahay, nebi saalex inta rumaysay dad yar ay noqdeen, kuwa dhaartayna dhaarta waa ay ka baxeen iyo balanta. nebi saalex calayhi salaam qoomkiisa wuxuu ku yidhi sida alla qur-aanka inoogu sheegay, هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. hashaana iyo nirigteedu alla ayaa leh. ceelka biyaha maalin ay ka cabayaan, idinkana maalin ayaad ka cabaysiin ceelka. weliba wuxuu u raaciyey, maalinta ay hasha cabayso ceelka, idinka caanaheeda caba. subxaana allah, biyaha maalin haddii loo diiday, caan ayaa loogu bedelay. alla naxariis badnaa.
sidoo kale nebi saalex wuxuu qoomkiisa ugu digay in ay dhibaato u geysan hasha iyo nirigteedu. haddii ay dhibaateeyaan hashan iyo nirigteedu, inuu alle subxaanahu watacaala ku soo dejinayo cadaabun shadiid ah. qaala tacaala وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. magaaladii xijir oo ay hamuud degnaayeen waxaa ku noolaayeen 9 nin mufsidiin ah. 9kaasi nin waxaa ugu dhib badnaa 2 nin. mid waxaa la dhihi jiray qadaar bin saalif, kan kalena waxaa la dhihi jiray masrac bin mahrij. qadaar bin saalif naaga cajuuso ayaa waxay ku tiri, hasha haddii aad qasho 4 gabar aan dhalay aan ku siinaa. masrac bin mahrijna naagay qaraabo ahaayeen oo hanti leh ayaa waxay ku tiri, haddii aad qasho hashaani nebi saalexna aad disho waad i guursane. maalin maalmaha ka mid ah raggii waa ay tashadeen. qadaar bin saalif hashii ayuu falaar ku gamay. hasha markii ay dhulka dhacday 8 kalena mid walba midii ayuu lasoo baxay oona la dhacay. sidaasi ay ku qaleen hashii. nirigteeduna waa ay carartay sida culummada ay sheegeen. dhagax weyn ay dhexgashay, dibna looma arag. 9kii nin habeenkii markii la gaaray waxay isku dayeen in nebi saalex calayhi salaam ay dilaan, balse taasi ma dhicin. alle ayaa ka badbaadiyey oo ayaga uu sii socda gurigiisa ayaa alla u soo diray dhagaxaan, oo dhagaxaantaas oo dhammaantooda ku baabi'iyey. qoomkii harayna calaamadaha cadaabta ayaa ku bilaabatay. maalinta koowaad wejiyadooda jaale ay noqdeen, maalinta labaadna wejiyadooda gaduud ay noqdeen, maalinta saddexaadna wejiyadooda madow ay noqdeen. markaasi ay ogaadeen tani inay tahay cadaabta alleh oo nebi saalex hore ugu sheegay. sidaasay iskugu diyaariyeen cadaabta iyo dhimashada, mid walba karfantiisa oo xirtay. kadib alla wuxuu ku soo diray cadaabtiisa, waxayna ahayd qaylo oo samada ka timid. way u adkaysan waayeen, sidaasay dhammaantooda ku halaagmeen oo guryahooda ay ku dhinteen. cadaabtaasi waxaa keliyay ka badbaaday nebi saalex iyo kuwa asaga rumaysnaayeen. kadib nebi saalex iyo kuwa rumeeyey waxay degeen ardushaam. sida la sheegay meesha ayuu ku geeriyooday nebi saalex. qisada nebiyullah saalex iyo qoomkiisa meesha ay ku dhammaatay. qisadeena xigta waa qisada nebiyullah ibraahim calayhi salaam. si aad nala socoto janalkeeni sabskrayb ha ka ilaabin.